مات فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا. waxaan ka sheekeynayaa haddii la ogolaado qiso yar oo kooban. nin imaama oo masaajid ka imaama masaajid weyn oo jaamica ayaa wuxuu yidhi habeenada ka mida ayaan riyooday. waxaan ku riyooday nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam. rasuulku wuxuu yidhi man ra'aanii fi lmanaami faqad ra'aanii xaqa. aniga qofka riyo igu arkaa toos buu ii arkay, leanno shaydaanku nebi maxamed iskuma soo ekaysiiye. markii uu riyooday ayaa wuxuu nebi maxamed ku yidhi sala allahu calayhi wasalam ninkii hebel 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 saddex magac intuu u sheegay, waxaad ugu bushaaraysaa inuu macayga jannada yahay. allahu akbar. waxa weeyaan nebi maxamed maciisa jannatu lfirdowsi alaclaa inaad noqoto waa wax dee aan ereya lagu cabiri karin. qof kasta oo muslina oo mu'miniina qaayada ugu dambaysay inuu gaadho noloshiisa ay rabto uu rabo inay tahay. wuxuu yidhi waan farxayoo nebi maxamed baan arkay, waan murugoodayoo ma yihi kaa nasiibka badan ee nebi maxamed jannada kula rafiiqaya. waxaan ku yidhi nebiga sal allahu alayh wasalam riyada dhexdeedii maanigaa nebi maxamedow kaas wuu igu celiyey buu yidhi riyada dhexdeedii maya waa hebel hebel hebel. wuxuu yidhi intii ka dambeysay hurdo maan seexan, waan ooyayey, farxad iyo naxdinba way igu dhex jireen. mar maa noqon kaa nasiibka badan, marna nebi maxamed baan arkay sala allahu calayhi wasalam. salaaddii fajar markii waana fakerayo waxaan islahaa talow ma hebelkii qur-aan akhriska badnaayee halkaa fadhihi jirayba, talow ma hebelkii kale sadaqada badnaaba, talow hebelkaasi hebeladii ma aan aqaanay oo dhan ee khayrka ku tuhmayey magacaa saddexaneen hayaa maaha. wuxuu yidhi markii aan salaaddii fajar masaajidkii dadkii tukiyey ayaan microfoonka qabsaday. ma idinku jiraa nin magaciisa la yidhaahdo saddexdaa magac intuu sheegay? wuxuu yidhi nin yaroo miskiin ahoo min caamati innaas, dadka dee kuwa ayaa soo kacay. waxaan ku yidhi buu yidhi muraad baan kuu leeyahay, maqsinkaasaynu wadageli doonaa halka imaamku. wuxuu yidhi markii ayaan ku idhi warnio xalay riyaan kugu arkay, ishaaro weynna waan kuu sidaa oo nebi maxamed baan riyo ku arkay sala allahu calayhi wasalam. markaan qisadii uga sheekeeyey aad buu u ilmeeyey buu yidhi, laakiin wuxuu yidhi waxaad ii sheegtaa waxa aad ku mutaysatay, camal weyn baad kolley ilaahay dee ajrigaa kugu siinaya, riyadaasina waa dee riyo qiimo badane ii sheeg. wuxuu yidhi sir bay ahayd anigiiyo ilaahay noo dhexaysa sheekhe, halkaasi ha taabane, waad mahadsantahay inaad fariinta soo gaadhsiisay. wuxuu yidhi waxaan ku yidhi buu yidhi anigu sirtii waxaan ka soo ogaaday meel kale. waxaan doonayaa anigoo aan ku magac dhabaynin inay ka faa'iidaystaan muslimiintu ii sheeg. waa tan haddaba nuxurka iyo baytalqasiidka iyo bartaan u socdaa. man satara mu'minan satarahu llah. wuxuu yidhi gabadh baan guursaday, muddo badan baan guurumeer ahaa, gabadh gayaana baan helay, diinteeda iyo dhowrsanaanteeda iyo dhegteedaba aan ku qancay. markii aan guursaday maan dareemin wax dhiba oon khayr iyo wanaag ahayna kalamaan kulmin aqalgalkeedii. muddo yar oo 5 bilood ka yar gudahood gabadhii habeenada ka mida, horta markii aanu aqal gallayba wakti yaroo kooban gudahood gabadhii waxay igu tidhi ilaahay caloosha ilmuu ii geliyey bishaaro khayr leh. waa wixii aan rabayeen ku rabbi baryayey. dabeedna wuxuu yidhi 5 bilood iyadoon gaadhin ayay igu tidhi habeen foolba ay haysa. waxaa la yaqaanaa shareecada waxaa jira wax la yaqaa aqalu lxaml, inta ugu yar ee hooya caloosha wax ku sido ama ilmo noolaan kara oo dhashaa waa 6 bilood. 7 bilood bay inagu naqaanaa, laakiin xagga fiqiga waxaa la yaqaa 6 bilood. tusaale ahaan oo kale waxaa la kala gooyaa 2 aayadood oo qur'aan ah. wاlwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawlayni kaamileyn, waa 2 sannadood xawlayni kaamileyn, waa 24. ta kalena waxa weeyaan
maxaan idhahdaayey hooyadu ilmaha intay caloosha ku sidayso waxamluhu wa fisaaluhu 30 shahra intii uu hooyadu caloosha ilmaha ku siday iyo intay nuujinaysay waa 30 bilood markaa nuujintii oo 24 halka ugu badana marka la soo qaato iyo xamligii halka ugu yar marka la soo qaato 24 marka 6 laga jaro marka laga jaro 30 marka 24 laga jaro maxaa soo hadhaya 6 waa intii ugu yarayd way ka sii yartay oo waxaan ku yidhi oo ma ilma aan dhamays ahayn baa foosha noocani maya waa ilmo sidkiisii go-ayo 9kiisii buuxsameen 9 bilood buu inaga wada joogni dabeedna waxay tidhi buu yidhi niyo waan kuu warramayaa laakiin go-aanka adaa iska leh anugu hal qodobun baa kaa codsanaya iyadoo ilmo aan xalaal ahayn calooshayda ku jiro ayaynu kulanna sidii baanad igu guursatay imanaad ogaan imanaad dareemin wax haba yaraatee dareena annaku uma muujin waxaan kaa codsanayaa haddaad i furto haddaad iga tagto waxaa kale adiga ay kuu taalla hay fadeexadayn ilaahay baan uga toobad keenay dembigaan kalay ilaahayna dembiyada wuu dhaafaa wa innii lagafaarun liman taaba wa aamana wa camila saalixan uma اhtada adigu laakiin hay fadeexadayn xaaladaasi waa xaalad adag wuxuu yidhi gabadhii ilaahay baa kala nabad keenay iyadoonu muliso iyo dhakhtariyo waxba u baahan ayaa ilaahay aqalkeeda qolkeeda gudaheedii ku kala nabad keenay anna waan saaciday ilmihii sidaan odhanaya haddaan idhaahdo anigaa dhalay waa fadeexad anigi iyo gabadhiiba nasabkaygiiyo dee anigu igu abtirsanaya dhaxalkayguu gelaya haddaan hablo kale oo dee hooyo kale ii dhasho wuxuu u noqonayaa maxram aan jirin oo waxaa ka dhalanaya dee waxyaabo fara badan wuxuu yidhi waxay igu soo dhacday fikrad salaadii subax masaajidkan aad tukinaysa laftiisa ayaan intaan ilmihii soo duuduubay sugay inta ragcadda hore la rukuucayo catabadda ayaan dhigay horaan u galoo rukuucdii baan ka gaadhay assalaamu calaykum tii la yidhi qofkii koowaadee soo baxay ayaa ilmihii yaraayo qaylinaya la kulmay alla ilmaha halkan la dhigay dadkii masaajidkii baa la keenay masaajidkay la soo doonteen waa kan dadkii baan dhex raacay buu yidhi waxaan ku yidhi buu yidhi aniga ii dhiibo igu duceeye anigaa ilaahay dartii u korinaya isaga kuma abtirsanayo gabadhiisiina wuu asturay hooyadii buu ku celiyay jaa-isadiisii maxay noqotay inuu nebi maxamed jannada rafiiqula noqdo macnaha qof aada asturtay sharaftiisa asturtay halkaasay gaadhi kartaa